bilaabanayaa gabadhan ugu magacaabanayaa yahay wax sawirayaan qolobada waana garaacayaan waxay si xun yahay wax qolobada isbitaalka balse yahay waxa uu maanayo arrinka wuxuu sheegayaa in yahay gabadhii karto keliya qofkaasina waxaa lagu magacaabaa ranfiir waa milkii ka tirsan ciidamada ranfiir ayaa wuxuu weerar qaadayaa qolobada isagoo wax ugu haysan wuxuu suuxayaa dhacdooyinkii gaabinayay balse ranfiir keliya wuxuu sheegayaa in oodhalaan uu weerar qaaday balse ranfiir ayaa wuxuu sheegayaa duracda ay dhibaato ku ahayd shacabka ranfiir ayaa dihiisii wuxuu sheegayaa in la qaabi doono ranfiir ayaa wuxuu qabayaa kusoo wareegay xerada isagoo kursiga qoriga ranfiir ayaa wuxuu kusoo laabanayaa xeradiisa ranfiir saxaabkiisa oo ayaa waxaa soo dhacay fariisa waxay kaga timid yahaa wuxuu sheegaysaa inay garab u baahan tahay ee dhibaato ku jirto balse ranfiir saxaabkiisa ayaa wuxuu sheegayaa in gabadhaasi iskalaaf oo heshiisa oo wato balse ranfiir ayaa wuxuu tagayaa taliyihiisa wuxuu sheegayaa sax taliyaha uu ka aqbalaya ranfiir fasax ranfiir ayaa soo baxayo dib aan u laabano siday isku barteen ranfiir iyo nihaa ayaa waxay ahaayeen laba qof isku kulaj ah nihaa iyo ranfiir ayaa wax isku baranayaan kulajka dhexdiisa waxaan dhaqmada wanaagsan ranfiir ayaan wuxuu jeclanayaa nihaana waxay jeclanaysaa ranfiir dib aan u soo laabano qisadeen halkii ay maraysay ranfiir ayaa wuxuu imaanayaa magaalada wuxuu hukumayaa nihaa waxaan hukumayaa goob lagu cabka bishiinka nihaa ayaan ranfiir wuxuu sheegaysaa inay dhibaato ku jirto balse ranfiir ayaa wuxuu diidayaa nihaa inay gursatay wuxuu sheegaysaa in gursatay weliba ay gabadhu joogto gabadhaasna laga afduubtay eena rabto in waa si garabsiiyey usoo badaayso ranfiir ayaa arrinkii ka naxayo wuxuuna weydiinayaa sababtii waagiisay booliiska wuxuu sheegaysaa in wax loo qoon waayey meelba ay tagtay ranfiir iyo nihaa ayaan waxay soo raacayaan dhanka saldhigga si ay daawo u qortaan balse saldhigga taliyihii kelinayay ayaa wuxuu isku dayayaa gabadhan wax anshaxuma ku sameeyo balse ranfiir ayaa arrinkaas u digaayo askarigii ayaanu askariga tagayaa hadalladii ranfiir balse ugu dambeyn askarigii ayaa waxaa garaacayo ranfiir ayaa wuxuu garaacayaa dhammaan askartii joogta saldhigga nihaa ayaa waxay celinaysaa ranfiir ayaana sidaas ugu xirayaa ranfiir ayaa waxaa loo garaacayaa si arxandaro ah balse ranfiir ayaa dudkiisa waxuu arkayaa xabado askartii ayaan la yaabayso waxayna weydiinayaan xabadahan ku yaalo sababta ugu dhacayn balse askartii mid kamid ayaa wuxuu arkayaa idhikaarkii ciidanimo ee ranfiir waxaana u sheegayaa inuu ninkan nin milti yahay askarigii ayaa wuxuu sheegayaa sababta u mariyey isla markii waxaa goobta imaanayo taliyii u weyna saldhigga waxaa lagu magacaaba doorodoro ayaa wuxuu qoonaya ciidanka in loo keeno ranfiir iyo doorodoro ayaa kumayo doorodoro ayaa ranfiir wuxuu sheegayaa in uu gurigiisa iska aado doorodoro ayaa ranfiir wuxuu sheegayaa taliyihiisa wixii doono haddii uu qaleexsi daba sameeyo balse ranfiir ayaa wuxuu sheegayaa in ciidankiisa aysan rabin ay daawo u qoraan doorodoro ayaana wuxuu ranfiir sheegayaa in daawo loo qori doono balse ciidamada uu ka sugo ranfiir ayaana soo baxayo ranfiir oo sii wata gaaritaankiisa ayaa wuxuu imaanayaa kolajkii dhiganaysay yareed waxaan hukumayaa marwada ka ah maamulaha waxaan u sheegaysaa sawirkaani inaysan weligii arkin gabadhaani kolajkeeda aysan dhigi jirin ranfiir ayaa arrinkaasi la yaabayo ranfiir ayaana wuxuu usoo noqonayaa nihaa wuxuu u sheegayaa inuu kolajka tegay balse gabadhaani ay kolajkeedii la keenin nihaa ayaana wuxuu sheegaysaa in ay been tahay arrinkaasi lana rabo in ay dumaan afduub loo geystay gabadheeda nihaa ayaana waxay arkaysaa meeshigeed oo soo gelayo waxaana ranfiir u sheegaysaa uu halkan isaga tago haddii kale meeshigeed oo wici doono ninkeeda shankar ranfiir ayaana goobtiisa ka tegayo nihaa meeshigeed ayaa imaanay kan wuxuu magacaabaa sanii waa ciyaar suuq isla markii uu meesha ku isticmaalayaa daroogo ranfiir ayaana wuxuu ka arkayaa meel u dhow asiga agtiisa nihaa ayaana wuxuu sheegaysaa sanii uusan meeshiisa ka tegin inay wici doonto si walaalkiis shankar sanii ayaa si u cadhaysan gabadhii ranfiir ayaana wuxuu soo noqonayaa nihaa wuxuu sheegayaa ninkaan saan u dhamaayo sababta marka imaaday ranfiir ayaana wuxuu sii wadanayaa baaritaankiisa wuxuuna tegayaa kolajkii ma arkayaa kaamisiisii goobta gelin ranfiir ayaana tegayaa ninkii waardiyaha wuxuu tusayaa ka ah inuu kamid yahay ciidamada waxaan ogaanayaa inuu galo wuxuuna soo gaarayaa kaamisiisiya sikumu ranfiir ayaa wuxuu arkayaa nihaa oo lajeeyo oo keliya mana arkayo aanugteer ay sheegisay ranfiir oo yaabaaso ranfiir ayaana wuxuu wargeysaga kusoo qorayaa gabadhiyar oo la afduubtay ka hor isla markiina ranfiir waxa soo wacayo waxaanu ku dhalaminayaa goobaha luuca kafaaga wuxuu sheegayaa gabadhaas yar inuu asigu dhalay lagana afduubtay ranfiir ayaana wuxuu leeyahay arrinkii balse ninkaa wuxuu ranfiir tusayaa caddeemo badan iyo sawiro iyo gabadha dhalashadeeda ranfiir oo arrinkaasi ka warsan ayaa wuxuu kusoo laabanayaa gurigiisa balse
نسيبهم رنفير أيوة وحركة ساكسي عثمان أو ضرورة كنا سنة رنفير أنا وحصد بجلين قال برادة وحوشيان صوته جوي رنفير أنا وقرايا بعد بقوليا رنفير أنا وصولانيا ساكسي عثمان وحوشيان وحاول فين ضرورة كنا سنة بس عثمان أيوة وحوشيان ضرورة كنا سنة بس هولي وخطو رنفير أنا كتير ساكسي عثمان رنفير أنا حصوايو شنكر وإنك أولها وحوشيان إن حاسكيسا وحبما إيسان دالي بس جشاي بشو أنا قوادتي مشو بس رنفير أنا كاسي بياوي شنكر أنا رنفير وحوشيان وسيرف وادو حاسكيسا بارتاكن بيشيس وحجيو رنفير وحاسن وصولانيا وحوشيان وقت بدن كمسي أسيغنا أكو إيارتي وحوشيسا قبل إيداي قبل جرتو أولابتي dadkan rabaan inay duwaan afduubkii loo geystay ranfiir ayaan argasikaan oo unagtaya balse ranfiir wuxuu arkayaa gabadh yeereed magaceeda oo dirib hore balse nasiib xumo waxaa iska tuuraysaa dabaqa sidaas ayaan ku yerinaysaa ranfiir ayaana ka xumaanayo maadaama ay dishay neehaa wuxuu ogaanayaa ay neehaa wax sheegayso ay run ka tahay wuxuu soo laabanayaa saaxiibkiisa cusmaan wuxuu sheegayaa sababta ugu eriyey in afduubtay gabdhaasi cusmaan ayaana wuxuu sheegayaa in gabdhaasi ay tahay afduubkeeda wax sax ah lagana afdutay ranfiir وحنايا ساكس عثمان وشيء ولا سيد دركس رنفير وحنايا سنكون قاعدين رنفير وقرايا بس نسمعه سكرت ما نشوف رنفير سنكون وتقدر وشيء ممكن يهي ممكن بيدرك نها يفضل كبير يشتي بس سني أيا وهلي جانسة استولد تلفور وكونها تلفور بس سلام فينا أسكيل كلشوا ونديا سني أنا سلسي بس ranfiir ayaa arrinka xumaan doorada aan ku sheegaya in baaritaanka siibo la socodon gabadhaas laga abtay ranfiir oo welisan ayaa doorada sheekeeyo ranfiir ayaa wuxuu sugayaa saaxiibkiisii cusmaan balse nasiib xumo cusmaan ayaa waxaa soo weerareen labadood waa indiliyaan ranfiir ayaana goobta imaanay saaxiibkiisii oo dhaawaca balse raggii dilo cusmaan ayaa goobtii jooga ranfiir ayaana wuxuu garanayaa labada oo warkata quusayaa sidaas ay miyaan balse ranfiir ayaa wuxuu arkaa telefonkii mid kamid ah burcad oo unbaarayaa wuxuu arkaa سيسا رنفير أنا سلسل وقوانا إله أوين أعطوك جيستي وحاول أن يضم إنه تليه أوين على المضايا دور رنفير أنا أركز محانا رنفير أنا ويريا دور رنفير أنا وقوانا دور وجو كيما وقضايا ويريا رنفير أنا وقوانا دور بس دور أيا وقياسنا إذا أدي أدو فربضان بس رنفير أيا مدي لما تقول كلمة كريجيا رنفير أنا وحوص ويريا لا الكفتر رنفير أنا الكفتر دي iskicinayo wuxuuna qarxinayaa mid kamid ah door waxa uu maanayo taliyihii militariga door ayaa wuxuu sheegayaa in uu dili doono ranfiir balse taliyihi ayaa wuxuu sheegayaa in ranfiir uu ka suuqo goobtana ay tahay goob bur ah ee tahay gurigiisa ranfiir ayaana uleynaya ciidamadii badnaa uu door ilaa laga tagay door ayaa si gaatin ah badda ugu dhufanaya ranfiir ayaa uu ku dhacayo door ayaa wuxuu sheegayaa ranfiir wax walbo door ayaa ranfiir wuxuu sheegayaa wax wasiiba ka dambeeyo gabadhaasna asiga duwantahay dadka cadeemaha ka hayn oo lacagsi balse ranfiir ayaa arankii xanaa door iyo ranfiir ayaa xamara dagaal ranfiir ayaa xanaaqay waxaan geliyaa ranfiir ayaa waxaa socdaya kalka balse ranfiir oo isbitaal ku jiro ayaa waxaa qabanaya yahaa ninkeedii shankar ranfiir ayaa waxaa loo sheegayaa gabadhii cusub daalinay waa sii dhalay shankarna oo yahay madaleys ah oo aan xalili karin sidaas darteed shankar ayaa wuxuu laaluush siiyey qof walba oo cadeen ka hayay wuxuu u sheegay in laga dhaasiinaysa waxmaha sanaalin si ay caafimaad u hesho balse ranfiir ayaa waxaa loo sheegayaa in gabadha waa sii walay ranfiir ayaa wuxuu arkaya gabdhihiisi yareed oo u farxaya saaxibiya keeni meeshaas ayuu ku egyahay fadlan aad ku cusub tahay dinamarka saskala dheh laag iyo kumtaagii shirtani noogu qeexda barnaamijka